Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Saaxiibayaal kusoo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago website waxbarasho oo haddii aad iska diiwaangeliso ka helaysid koorso free ah iyo shahaado free ah. Marka si aan idin tuso bal aan isla aadno Google Chrome-ka. Marka saan usoo furno Chrome-ka ama browser-kaaga waxaad ku qoraysaa mygradelearning.com. Enter ayaad dhahaysaa. Saan kugu soo baxayaa. Marka waxaad dooranaysaa midkaan u koreeya aad dooranaysaa aad aragto kadib waad ku dhufsanaysaa. Dabcan adiga waad ku cusub tahay marka kuma sameysno ciwaan iyo account-kaaga ma furno. Halkaan oo kale ayuu ku dhihi doonaa sign up ama sign in. Kadib Google waxaad ku xiranaysaa Gmail-kaaga. Aniga marka toddobaad hore ayaan iska diiwaangeliyay oo aan ku xiray Gmail-kayga kadibna shahaado ayaan ka qaatay kadib markii aan koorso dhammaystiray aan ka qaatay. Haddaba ka magacaygii haddaan tuso Gmail-kaygii baa igu sameysan my courses. Halkaan waxaa weeye koorsooyinka aan qaatay. Haddaan ku dhufto waxaan idin tusayaa koorsooyinka aan ka qaatay. Internetka ayaa yara culus. Halkaan ayuu ku keenayaa koorso aan wada ayaa jirta weli dhammayn. Koorsadaan oo kaleento Excel for beginners-ka hadda ayaan wadaa. Mardhow ayaan ma qaadan weli cashiradeeda ma gelin. Inta ugu badan maalin bas aad ku samayn kartaa 2 saacadood weeye. Marka waa samayn kartaa 1 saac 37 daqiiqo ayaan markaan ku jira aan ka baxay. Marka my courses-kay waa kuwaan. Halkaan haddaan ku dhufatid waxaad arkaysaa courses-kii aan sameeyay iyo shahaadada. Marka waa tan shahaadada mar walba shahaado halkaas kugu soo qormaysa haddaad shahaado sameyso. Marka shahaadada haddaan idin tuso aan ka qaatay noocan ayay u eg tahay. Shahaadadan ayaan ka qaatay toddobaadkii hadda naga dhamaaday. Shahaadadaas oo magacaygu ku qoran yahay oo Cloud Foundation koorsada la dhahay ayaan dhameeyay. Imtixaan yar baa laga qaadayaa oo la rabo inaad keento 60 marks. Haddii aad ka hoos marto 60 shahaado ma helaysid. Haddii aad waxaad leedahay 3 jeer camal inaad shahaadada marka exam-keeda sameynayso 3 jeer camal ayaa lagu siinayaa chance inaad imtixaanka qaado ama gasho. Marka u horeysa haddaad tusaale ahaan keento 80 mar labaad ayaa lagu dhahayaa isku day. Haddii aad keento haddana 60 mar saddexaad ayaa lagu dhahayaa isku day. Haddii aad haddana markii saddexaad keento 40 waxaa lagu qaadayaa score-kaaga kan ugu weyn oo ahaa 80. Intaas ayaan rabay inaan idinla wadaago. Ka faa'iideysta. Waxbarashada waa lama huraan. Waxbarashadii hadda aad ayay u sahlanaatay. Waxay kugu imaaday goob walba oo aad joogto taleefankaaga mobilkaaga. Sidoo kale waxaan rabaa idinka hilmaamay in website-kan markii aad iska diiwaangeliso ood koorso iska sii diiwaangeliso cashirada video-ga ah markii aad daarto lama ogola inaad dhaafiso ama aad meel dhex uga tagto. Haddaad sidaas sameyso ma fuulayo tick ama calaamada saxda ah oo wuxuu sheegayaa inaadan cashirkaas qaadan oo dhan dhammaystiran. Marka waa inaad cashir walba oo ka mid ah koorsada aad qaadanayso inaad si dhammaystiran u dhameyso kadibna tick-ta kuu fuusho. Markaas ayaad u tagaysaa quiz-ka ama assessment-ga lagugu qiimeynayo oo lagaa weydiinayo su'aalo cashirada iyo koorsadii lagu soo baray. Kadibna shahaadadaada ayaa